waa kuma الفنان socdaal waa mid ka mid ah dadka ugu caansan magaalada muqdisho maxaad ka xasuusataa markaad magaciisa maqashid wiilkan talentiga leh fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaray like inoo saar noo share gareysa saabadan uu gaaro hamogaanin inaad youtube ka subscribe ay inoo saartid ama page ka follow aad inoo saartid الفنان socdaal magaciisa dhabta waa Abdinaasir Maxamed wuxuu ka dhashay degmada Kaaraan wuxuu ahaa jilaa aad u weyn haddii aad xasuusato TikTok asigoo gabadh saaxiibadiisa ahayd oo ku soo bandhigi jiray TikTok meeshaad nagula socotaan waa team Baydhabo Channel wuxuu lahaa hami iyo mustaqbal uu ku gaaro fankan wuxuu ahaa jilaa aad u weyn waxaana ku xasuusanaa ayaa wuxuu ahaa nin aad u codkar badan uguna khibrad badan uguna soo saari badan Soomaali Maxamed ayaa waxay jeclaatay in ninkan talentiga leh oo qofkiiba talent lahaa inay soo saarto الفنان socdaal ayaa wuxuu noqday fanaanka ugu shidan sanadka riyadiisa haddaad xasuusato waxaa ka mid ah anigu waxaan ahay dabeeshaas oo ay wataan dhalinyaro wuxuuna leeyahay hami faneed iyo mustaqbal wuxuuna ku hanweeyahay inuu ka mid noqdo fanaaniinta ugu waaweyn oo soo mara dalka Soomaaliya الفنان socdaal ayaa wuxuu ku soo caanbaxay hees magaceedu ay tahay qaayidaadan ka dhax qadayna waana halaynaa waana hawayna hadda wuxuu hees u soo qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuuna farxad la qaybsaday dadka ku nool magaalada Puntland gaar ahaan dawladda Puntland caasimadda Garowe ee magaalada Puntland ayaa wuxuu la qaybsaday 1 Agoosto ee xafladda الفنان socdaal ayaa wuxuu hawadiisa idin soo marinayaa inuu yahay fanaanka ugu shidan sanadkan oo soo baxay uguna hanweyn yahay uguna soo saaris badan uguna talent badan fanaanka taariikhdiisa halkan kuma soo koobi karo fadlan muuqaalka hadduu ku soo gaaray like inoo saar noo share gareysa saabadan uu gaaro mahadsanidin waxaynu balanaa muuqaalkii waa idin ka taynaa anigoo ah walaalaadkay sidaas iyo maana Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh